السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروحنا بدنا ناتكوش على ميل كستد كل شبتان دوني دافية حل كست وقت كست يدنتهاي وعنا وناكسن ولاش هيرك هو يد اللي سود وهذا channel كان دقنا صعدتنا وهرساق أوفيشيال وحنا دين لي هاي إذا شعلي الله إذا شعلي دواني دين حساب إن شاء الله بسم الله الكريم ما أنت موضوع عم تبقى عن كهذا لنا والرياكشن سيدي عادة إنه هاي موضوعنا وحقوق السيالة بقى برضو الصاحبة قصدنا waxay ka dhacday Suudaan okay maadaama Suudaan ka dhacday qisada iyo sida ay tahay barnaamijkeena weyn guda gali doona barnaamijkeena waa Musaamax Kariim isnaga oo ka soo xiganay ama ka soo qaadanay Zamiir Jamaal okay soo dhawaada hadal badan han ma buuxso waan idin jecelahay channelka share-ta ku qabta inoo fogeeyo meel leeyahay geeya soo dhawaada waa qiso ka dhacday dalka Suudaan una dhaxaysa laba hablood oo saaxiiba balwan eegi doona sheekadu soo dhacday waa ugu horeynay anu yeedna markoo saaxiibada daawaha Mushira Muhammad ahlan wa sahlan marwa Mushira وين دوها isoo fiiso iga waran xaaladaada iyo hawlaha الحمد لله awluhu ku kala wanaagsan dhamaanba ها وإيه وناكسين xaas miyaa tahay Mushira ها imsa u badan leedahay لبها بلون ما شاء الله ilaahay ku day magacyadooda رحمة الله يرحمها مدة يرنا مونا الله يرحمها raxma iyo muna ها ما شاء الله عليك هذا بشيرة waxa haysata dhibaato ka haysata saaxiibadeed ee mashaacir waa dib soo taagnaa muddo gaadhis 5 sano 5 sano laba saaxiibo oo nafta isku bixiya baan hadda wada hadal wandii sheegi doonaa sababtu waxay tahay waa ugu horeyn markii hore ku noolaayeen waddanka Suudaan iyagoo isku dhan mashaacir ayaa guursatay waxayna timid waddanka Masar iyada iyo saygeeduba muddo kadib markii guursatay Bashiiray iyada iyo waliba ninkeedii way imaadeen waddanka Masar haddaba waddanka Masar ayuu dhibaato ku kala dhex martay iyada iyo ninkeeda kaba soo qaaday imika labadooda saaxiibada ah Bashiira mashaacir haddaba way ka adkaysan weyday mashaacir khilaafkan reerka soo kala dhex galay kadibna waxa isku dayday inay kala dhex gasho Mushira iyo ninkeeda haddaba Mushira waxay ka shakitay saaxiibadeed in uu xiriir ka dhaxeeyo odageeda iyo saaxiibadeed waa si qoto dheeraaday khilaafkii aad ay u sii qoto dheeraaday hatta dhowr jeer iyagu isku dhaceen kadib way kala tageen ninkeedii saaxiibadeedna way kala fogaadeen mashaacirna aad ay uga xumaatay arrinka waayo saaxiibadeed Mushira in saaxiibadeed iyadu ay ku soo eedeysay inuu xiriir ka dhaxeeyo saaxiibadeed iyo ninkii ma isku dayday markaa inaad heshiisaan ma isku dayday inaad la heshiisaado iyada oo aad ka dalbato raaligelin oo sidaa ku soo ceshato saaxiibada ee mashaacir إن بدن بين سكودي لكن صاحبتي ويقو قعان سيداي أهلكيga xataa waan u diray iyo asxaabtaydi kale laakiin mar walba way soo diidaysay inay soo diidana xaq bay u leedahay way anigu waxaan ku sameeyay wax xun buu ahaa qofna ma istaahilan sida loo galo sidee adigu toontayada ma dadku dhamad ku haraayaysay siyaabo fara badan khilaafkiin markaa meela Suudaan oo dhan wada aniga gaadhay saaxiibada naga dhaxeeya kaliya kuma koobnayn xataa waxa jira qof saddexaad oo ay qofka saddexaad ku jireen gabadh kale asxaab ahayn bay ahayd taasa fidnadaba abuurtay iyada labadeeda sukaaya dirtay aniga saaxiibaday saaxiibtinimo way ka weynayd wixiina dhex yaalay xataa dad walaalaayo kale aan ahayn iyaduna midaasay ka xumaatayo laakiin sidaasay fidnadoo kale dhex kaga shakaday gabadha saaxiibada haydeen iyo ninkaaga saaxiibada fidnada ah ayaa iyadu cadeynay keentay waxay cadeyntu markaa iga raali ahaw laakiin aniga daliilka la ii keenay wuxuu ahaa taleefanaha isweydaarsadeen iyaga sheekay ka wada dhaxaysay waxa ii keentay cadeyn qalada sida iyadu wuxuu sheegaysayna barnaamijkeena Musaamax Kariim sida aan wada arkayno hordhaceena waa laba hablood oo saaxiiba oo ku nool dalka Suudaan runtii aad soo jecel labada hablood oo saaxiibka gabadhan iyo xaajiyada isku dhacay saaxiibadeedina dhexdhexaadisa jeclaysatay dad xumaata shiila isku yiri waaba laga riixanaya hablahaas 5 sano ma wada hadal waxa dhacday oo sababtayna bay tiri gabar saddexaad saaxiibna la aha oo aniga aan jeclaysan inaan saaxiibtinimadu sii jirto uun bay noqonaysaa jiritaanka saaxiibtinimadu ka xun midda marka laga yimaado cadeyn bay horkantay sometime waxa kasto indhaha arkaan ma aha run micnaha waxyaabaha qaar indhaha ka hor muuqda maaha waxaad oran karto run ku qeexi karto marka sometime iyo waxyaabaha qaar idin khaldin imanka cadeyn qoraal ay u keentay haddana waxay noqotay fake
marka weliga qofna qof ha maqleen sidaada kuma qofka fikirkaaga ku diid ku toon laakiin yuu qof awriyaaga bedelin ugu shaqaysaneen saaxiibtinimadu waa shay qaaliya insha Allah waana axla ilaashto bal aan mawduucana ku socono jirin hadallada qaar ay ii sheegi jirtay waxa kamid ahaa gabadhan saaxiibada way ku khiyaamaysaa oo ninkaaga rabtay inay kala wareegto waqtigaas anigu kamaan fiirsanay hadalka ay leedahay manaan miisaamin sidaad arintan ugula hortagtay mashaacir waxaan ku yiri arrinkan ayaan maqlay ee maxaa ka jira iyadana waxay tiri arrintani ma jirto ana waxaan ku yiri cadayntaadii baan gacanta ku hayaa oo ima khiyaameyn kartid iyaduna waxay igu tiri caradu yaanay kaa tanbadin oo ha fududaana u fiirso aniguna gebigeygaba waan caraysnaa oo waxba maan maqlayn iyadu gabadh saaxiibadaya wanaagsan bay ahayd oo weliba anigana ii wanaagsan laakiin aniga ayaa khaldamay odaygu markaa muxuu yidhi ninkaygu iyadu أنا مع الصبرين إلهي سمر كهينو جديديو سمر كهينو سياديو لبدن هبلت سان أركنو قبل لا ظلمي أيا استيل كلها فضضانين عرض يكاتم بدنين سيدجن وفكر وحنا جمس سرتوا بالستيتش ما شاء الله la saftay ehelkayguna sidoo kale iyada la safteen waxaana igu raadeen waxaana arkaysaa maaha markii mashaacir aad uga shakiday in iyada iyo ninkaagu xil ka dhaxeeyo miyaanad ka shakin adu ninkaaga anigu ninkayga waxba ma su'aalin ee saaxiibadii un baan diiradda saaray laakiin ninkaagu miyuu ku qirtay markaa in isaga iyo mashaacir uu xil ka dhaxeeyo may wuxuu igu yiri waxaan waxba kama jiraan wuxuu xataa ninkaygu igu yiri inta aanad fududaan arrintan oo kale waa laga fiirsadaa maadaama aad ogaatay adigu ma isku dayday in aad mashaacir dib aad ka raaliso mar walba iyadu way igu gacan saydhisay xaqna waa ninkeedii ma jiraan waxaan ugu koodhay iyada family-geedana saaxiibada bay raaceen because waxay ogaan saaxiibtinimadii ka dhaxaysay walaaltinimadii ka dhaxaysay inayna marnaba saaxiibadeed khiyaamaynin laakiin iyada kalsooni darra gashay ma fiicna saacadaha qaar xidhiidhada qaar inay kalsooni darra soo dhex gashay saaxiibadaad nafta wadaagtaan xitaa hadday reality waxaan waa inaad tiraahdaa no ma dhici karto oo aad still siisaa inay saxsan tahay oo ayna waxaan ku qori karin dan iminka iyada qoyskeedii inanta bay raaceen waa inanta way saxsanayd arrintoodana way saxsanayd laakiin shaydaankii wixii baa isu yaraa bal saaxiibadaas ay ku dambeeyaan beeneegeena u leedahay aniguba haddii aan booskeeda ahaan lahaa sidaasaan samayn lahaa waana fahansanahay in badan baan isku dayay inaan saaxiibadii raaligeliyo aan saaxiibtinimadeenina soo celiyo laakiin mar walba way i diidaysay waanay ku saxsan tahay bal aduga iyada xaaladeeda iyo dabeecaddeedu sidee tahayna iyo akhlaaqdeedu sidee tahayna wallaahi ma isleedahay way ku saamaxaysaa waan rajaynayaa laakiin adugu waad garanaysaa iyada sidee tahay iyadu waa qof wanaagsan oo weliba qalbi xariira leh waxaana laga yaabaa in sidaas ayaad rajaynaysaa haddaba marwo anagoo nu dirnay fariintii iyada saaxiibadda bal aan wada aragno si u gaadhay fariintu inay ogolaatay iyo in kale saaxiibadii baa fariinta loo diray inaguna aan daawano boosta wareegta habka calamu maarayso la helay in buuriga lagu tufay maanta wiilba asxaabta quruxda badan waan idin jeclaado channelkeena fogeeya inoo sheer gareeya like tahay naga ilaawina bilaa caleeg channelkan yara wankeyga taagan weyn yeer buu furay markaa inoo hagaajiya alxamdulilah inoo sii wada mashaacir waa gabya oo kale laakiin anigu ma gabyo idigu mareer khartuum batiin asal ahaanba may anigu reer bursudaan baan ahay bursudaan waan gartay muddo intee leeg ayaad ku nooshahay markaa waddankan masar si toos uma degani laakiinse safaraan ku imaadaa sanadkiina 4 jeer bursudaan maadii ninkaaga markaa may aniga qoyskaygaba oo armal ayaa tawood kala tagteen xaajigaaga oo waayana maxaad kala tagteen bes khalaas calafka dhamaaday imisa carruur ayaad leedahay adoo armal leedahay wiil kaliya haystaa alxamdulilah waa imisa jiri markaa 10 sano ayuu jiraa ninkaagii hore markaa muxuu ka shaqayn jiray waa injineer xagga leerka waa injineer korontada waan gartay iga waran haddaba adigu xaaladda suudaan iyo dhammaanba waxa ula soo dhagmaha alxamdulilah haddaba mashaacir aniga maaha runtii cidda ku yeedhay adigu waa timid oo martideedii ayaa tahay waana ku soo dhaweynayaa aad iyo aad
laakiin qof ayaa jira dhabarkayga damba qofkaasana ku yeedhay haa laakiin aniga magacaaga la igu yeedhay magacayga oo aniga ayaa kuu soo diray fariinta waana diga aqbashay laakiin hadduu qofkaas isagu kuu soo diri lahaa maa timaadeen qof aanan anigu sidaa awgeed aniga waa kuu yeedhay kadibna waa timid adigu ma jeceshahay inaad aragto qofka kuu yeedhay dee adiga ii yeedhay laakiin qofka runtaa ee kuu yeedhay ma jeceshahay inaad ogaato qofku yahay haa shaashadda eeg haddaba waayo anigu aniga ku lahaa iyaad filanaysaa ma dumarba mise waa nin waa gabadh ta ku yeedhana waa iyada wallaahi anigu ma imaadan haddii aan tan moodayo waanan ka xumahay ayadoo umaan imanin laakiinse adiga awga waa run aniga awgay ayaad u timid waanan kaaga mahad celinayaa aad baanad ugu mahadsan tahay aad ayaan la socdaa inaad anigay timid iyadana umaad iman dadkoo dhanna waxay ogyihiin inaad anigay timid aanad iyada u iman iyadu waa ogsoon wax ka xuni ma jirto markaad qofaad saaxiibkaa tihiin oo nafta isu bixisaan oo walaala tihiin oo adduunka isugu jecesha wejigaaga oo dhibsado karho waa ogtahay iyadu aad buu ogtahay anigu tan inaan sii arka ma doonayo waa inaan iska baxaa mashaacir istaji oo fadhiisoorta waa ku sidee mashaacir maqal istaji oo ila hadal oo kaalay dee waa ku sidee kaalay inagaa wada hadalnaa waayahay iyada iska helays adigu aniga ayaad martideeda tahay anigu martidaada waanahay haa laakiinse waxaanan jeclayn baad kadis igaga dhigtay iyadu in lama joogto inaga fogtay shaashada mana raba anigu naagtan haa laakiinse anigu kadiska noocana kama helo gabadhani waxay igu samaysay haddii adiga kugu samayn lahayd maad yeesheen inaad la hadashay inaad aragto toona didi lahaa aniguba haddaan booska ku jiri lahaa ee fadhiiso horta maxaa dhacay innagaa wada hadlaynaa fadhiiso waa ku sideedee ma sidan baa adigu horta waxba ma ogid anu waan garanayaa anigu waan ogahay wax kastaaba se u dhaceen wax kale ayaa iyo jira wax kaleba bas haddaad og tahay waa alxamdulilah aan midku weydiiye haddii aad og tahay sheekadu siday u dhacday oo dhan anaa kuu maxaad sheegi aniga doonaa halkan ii ugu keentay horreyn horta fariin bay kuu soo tirtay fariintaasaan ku akhrinayaa iyo ogal horta marka hore inaan ku akhriyo hadhowna innagaa wada hadli doonaa waxay ku tidhi saaxiibadaydii qaaliga ahayd een adduunka ugu jeclaayay ee mashaacirey run ahaantii garan maayo meel aan ka bilaabo fariintan aan adiga kuu soo qorayo way adag tahay in fariin loo soo qoro qof agtaada qaali ku ah oo booskii walaalnimada kuugu jira taasay ahayd markaa inaan xifdiyo laakiin anigu waan iska dayacay dooqannimo iyo maangaabnimo bay aniga taasi ii ahayd inaan dhabar jabiyo oo sumcaddeedana aan kaga ciyaaro taasina doqonnimo weyn bay sii ahayd iyada ayaa saan ku tiri saaxiibadayda qaaliga ahaydey mashaacirey muddadaa 5 sana ee na soo dhaaftay maxaan samayn lahaa haddii aan booskaaga ku jiri lahaa ood ii tuhanto saaxiibadan adduunka ugu jeclaa ee ii tuhanto weliba tuhamadu kala fiicane tuhankan halista ah mar walbana waxaan ogsoonaa dhaawacan ku gaarsiiyey awgeed inaanad si fudud adii cafineen saaxiibadayda qaaliga ahaydin dunida ugu jeclaaye haddaba waa aniga qofkaasi mushiiradii kugu khaldantay ee kugu gaftay sida xunna kugula dhaqantay si doqonnimaana ula dhaqantay qof qaali agteeda ku ah haddaba saaxiibadayda qaaliga ahaydee mashaacirey waan ogahay anigu inaad tahay qof qalbi cad leh qalbi wanaagsan igana aqli badan intay doonto waxaa aniga igu filan intaad aniga idanayn jirtay ood hooyadayna ii ilaalin jirtay wanaaggiyo kalgacalkaad u muujin jirtay faamilkayga waan ogahay inteebaad adigu aad u qiimo badan tahay aniguna inaan aad u liito iga raallahow saaxiibadayda qaaliga aheedee mana doonay weligay inaan adiga ku waayo waxaanan doonayaa wixii aan kaa xumeeyey inaan dib kuugu soo celiyo waxaana xaggan ka caddaynayaa dhammaan dadkaasoo dhan i maqlaya inaad tahay qof sharaf badan oo cizi leh karaamaysan quruxna badan ahna saaxiib la doorto saaxiibka ugu wanaagsan weliba haddana inay ogaadaan dhammaantoodba inaan anigu ku raali gelinayo oon ku leeyahay iga raallow saaxiibadayda qaaliga aheedee iga aqbal raaligelintan waxaa tahay noloshayda qayb ka mid ah waxaan jeclaysan lahaa inaan bartan ka baxno inagoo gacmo aysaysana isaamax walmusaamax kariim
ma ogtahay markaadu waxa u timid iyadu imaka waa sababtan imaka aan ku akhriyay waxa u timid halkan sababtoo ah insha Allah runtii si ballaaran oo galgacal ku jiro oo qiimo ku jiro ay warqada u soo qorto ula hadasha ma khaldama waa alle aadamahuna waa la khaldamaya waa loo joogaa in sagaasha ka bala isku dhaco dulqaadkuna waa halkiisa hadaba waayahay gabadhaan ma loo dulqaadan doonaa waxay ay samaysay ila way ogtahay ma la raali gelin doonaa way raali gelinaysaa laakiin ma yeeli doontaa waan leenahay asiif waxay timid stuudiyahan iyadoo dhammaanba malaayiin qof ay daawanayaan si ay kugu cudur daarato ay raaligelina ku weydiisato kuna soo celiso wax walba oo ay kaa kharaabisay iyada naftirkeedu way dareysan tahay in adiga ay ku xumaysay oo sumcadaada ay kaaga ciyaartay fariinto dhan way wada gaadhay ehelka qardoon wada deganaa waxayna ogaadeen inaad adigu tahay qof aan eed lahayn waxa kaliya ku soo gaadhayna ay yihiin tuhum iyo dani ay kugu qaaday saaxiibada waa taas sababtu Mashira la hadal dad saaxiibada oo kula hadal wixii aad halkan u timid ee rabtay inaad kula hadasho wayna ku maqlaysaa iyadu marka hore waxaan ku rahdaba garan maayo laakiin anigu waan kugu qaldamay in badan baan kugu qaldamay waxyaabihii inaga dhexdeena ka dhacay iyo saaxiibtinimadeena burburtayna aniga dambigeedoo dhan dusha saaranaya xumaantoo dhanna waxay ka timid inaga dhexdeena waa laga shaqeeyey sidii laynoo kala fogeyn lahaana wax walba waa loo sameeyey aniguna doqon baan noqday waxaa jira dad aad u xun oo dadka isku dira oo aqaladana buriya waxaa laga yaabaa qof ka xun labadiina xiriirka idiga dhexeeyey in waxaan sameeyey yani tan hadal u sheeg oo tan hadal ku dheh yani runtii way dhacdaa mararka qaarkood waxyaabo oo dulmi ah oo qofka muddo imika 5 sano ah oo ay soo noqotay saaxiibada kala ogaatayna wanaagaagii iyo saaxiibtinimadaadii wanaagsaneed oo ay rabto waliba in aad ku raali geliso dadkaas oo dhan baa daawanaya waxaan waliba ku oranaysaa anigu waa khaldanahay aduu qof sharafaysan baa tahay ciz iyo karaamaba leh qof qurux badanna waa tahay ilaa ay warqadan adarkiisa waxay ku leeyahay marka hore mididu yeesartaa maxaa tirinaa maskaxdeedu halkay ku maqnayd markii aniga waxa igu tuhmay ma joogin laakiin hadda garab fiican ku yaqaana maba kugu tuhmi kara waxan oo kale laakiin waxa jiray dad idinka dhex shaqeeyay maxay aniga laakiin fursadiisii weyday si anigu aan u sheegay in aanay waxba jirin qofka hadii dambi lagu soo eedeeyo oo yahay qof wax lagu haysto waa in la siiyaa fursad isku difaaco sida uu horeba timid yeesartaa macnaheedu la tuhmaa qofaad shaki ka qabto qofaad aqoon u lahayn qofaad ku kalsoonayn that's true a good point arinteeda ma aha inaad cudul iska tunta ama dhacdo sometimes waa inaad ka fiirsataa waxa aad sameynayso waa inaad qofka iskaga khaldamin way tan waa adiga noloshaada qofkan waa qof adiga saaxiib wehelka walaalka waxa jira khaladaad aan iska cafin oo qofkan bil aadanka uu abidka cafinaynin saas markay tahay waa inaad wax badan eegto oo inta aanad falin aad in badan ka fiirsato go'so kugu soo noqonaya xaaladan oo kale hadii soo dhex istaagaysa waxa dhici karta inaanad waxba ka gaari karin marka hore waxa loo yiri taanad falin ka fiirso maamaha ingiriisi ahayd aad ku tuuro waa lagu kala kacaya meesha qof wax lagu haysto waa in la siiyaa fursad uu isku difaaco sida uu rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam yiri qofkii kula yimaada war xumo tashiil an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu hadii xitaa dambi igu haysay timid hada fursadiisa qofka marka la soo eedayo fursad baa la siiyaa si uu isku difaaco wuxuu cadeyn keeno ilaahay khayr ha wafajiyo ilaahayna boogooda barcadayso على ما فعلتم نادمين soo sidaas ma aha waayahay maxay markaa gabadhan ii sii weyday aniga fursad aan ugu sheegay inaan anigu saxsanay oo iyagu qaldan yihiin aad baan ugu qoomameynaysaa wayna dareentay qoomamadeedii waxayna timid stuudiyahan waliba ka malaayiinka hortooda si ay kugu raali geliso miyaad ogtay gabadhan aniga waxay igu tiri ma garanayo mana rabin inaan ogaado oo waayo markaa waxaad ka cararaysaa aniga dhaawacyada ay gaadhisay gabadhani inay ku tuhantay inaan ninkeeda la sheekaystay moodaysay aniguna ninkeeda maba aqaanaba waliba taleefankan aniga iyada igu dhiibi jirtay waliba taleefanku waa taleefankeedii insaan walba uu khaldamaa eeg saaxiibada mid walba shaytaan ayaa ka dhex shaqeeyay
horta qofku markuu masayro waxa ma kala yaqaano laakiin ilma adeerayaan masayrka u meel daya oo ha iska masayrine baalka caqli ku dara oo halkii farxiya ka beere yu waxa jacbaas ku dawaaline waxaan inaga qaabay oo waa laga eegay waa laga sawirayo ee xitaa baalkan laxanka ka daayay laxanka oo odayaashan haynu soo ciyaarsiinina haynu soo marka inaga masayrka hala qaabay laakiin marka heshiisaa shaydaanku isaga ayaa idinka dhex bixi doonaa ma rabo inuu naga dhex baxo u baxaya ilmada wata ka soo baxday miyaanu ilmada soo raacin anigu ma rabo naagtan inaan la heshiiyo mar kastaan anigu xasuusta gabadhan qalbi xanuun ayaan ka qaadaa xiqdi ay kugu noqonayaa عور الشيطان كود كده بحياة دي شتي مريم نقدر بح وحنتي نفتي بلا ناي مكا دمرو شوشي دمر كويسكي قانا oday waa laga eegay inta laga eegay da qarso waxa banaankiina iyaga ma noqon kartid qab xaasidada mana haboona inaad saa kala haataan muddo imika 5 sano laga jooga masaasad ahaanaysan weligeed waqtiguna waa kooban yahay si kasta haataba anigu wixii ii waajib haaban sameeyay tan waa fursad adigu aad haysato iyaduna ay haysato inaad cilaaqaadkiina xiriirkiina ba ka wada ayaad soo ceshataan iyadana geesinimo muujisay way malaayiin qof ay soo agstaagtay si ay kugu raali geliso adiga go'aankana adigu baabta gacanteeda ku jira ma jeceshayna saamaxdo ood gacantiisa saartaan oon gidaarkaana idiga hor qaadno oo imika gabadhani ma halkan ay joogtaa aad simir saaqa ina waxaanu sugnaaba waa in gabadha miskiinta ay iska cafisaan waayo markasta haddii aad adigu noqoto qofka wax cafiyo wax ka roonaada masha Allah aakhiri adduunba waa liibaaniye waxaan idin leeyahay asxaabteedan aad ka jecelahay dawlaashineera miskiinadana bilaa caleek gobol dhan ayay leedahay youtuber baan gobolka saaxil dawlada meesha ka qaada aan ma dhagaadkiidina in ma adeeraya waan hadlayaa una intiga be oo miyaanay ka baqaynba inaan meeshan ku dhex dilaano maya ka baqan mayso hadda hata ku sameysana raali bay ka tahay way ku farxaysaa wallaahi aduguna أنا توت والله أفريد بقى وحكون إنك نأتي مالك نيجوك تها ومين كان بقى بيتنا قراعة والله وضبله ويدودو لا أري تكوده وحنا لقي يابا إنه كوسو نوتو هدي كلنا تمد والبا لنعيشو كلا نقاقيا إلا يقولوا قدي يمشي أسكت مادين وحنا أركض دونا وقتك كلا وحسمين دونا يينا فرصة بعد هشان وقتك كلا بنا وما هرين شنتها سنة نقلنتي ayaa naga badan baa naga inkastoo anigu isku dayna saaxiibada la heshiiyo hore way u soo dhici weyday maantana iima muuqato anigu xalkii u dambeeyay raadiyayna barnaamijkan buu ahaa anigu weli saaxiibaday kamaan quusan waxaanan ogahay qof wanaagsan inay tahay laakiin way iska yara kuluushahayoon hadallada ay ku hadlayso dhanna waxba iyada hoos uguma laabna waa qof qalbi xaaran aniguna iyada kalsooni weyn baan ku qabaa intaas way qiiro gelisay wallahi xaqiiqat waxa tiri waa qof wanaagsan oo qalbi nadiif ah waana ku kalsoonahay waqti baa naga tagay axaya waad maqlayseen aan kartay 3 daqiiqo ka fakir jawaabtan ka qaadan doona markaas hay bashiir adigu dhamayso hadalka 3 daqiiqo saaxiib cid garan karta in la noolaan karo male maanta ayaynu noolnahay برينا ما garanayno anigu waxaan jeclaan lahaa maanta inaynu ka faa'iideysano adiguna aad iska cafisid saaxiib waan ku baryayaa soo xasuuso waqtiyadii wanaagsana ee sida walaalaha aynu u noolayn anigu waan xumaaday saaxiib culayskan inta in ka badan ma haysan karo waan ku baryayaa iska cafi saaxiib waxaad miskiin iskaga dhigaysaa eed aniga ii beer la xawsanaysaa
waxaad ogtahay inaan qof wanaagsanahay waan ogay qalbi wanaagsan inaad leedahay oo kalgacal ka buuxo waanan ka xumahay maalmihii xumaa iyo qaladkan kaa galaba aad baan uga qoomameeya inaan maalinun kaa xanaajiyey waxba kamaan qaban karayn anigu isma baan ogeyn laakiin maanta waan ku raali gelinayaa mashaacir anigoon ogahay mararka qaar raaligelintu dadka kale uma fiicna oo naftaada ayay raaligelisaa qofkuna inuu qof raaligeliyaa waxa kaga khayroon raaligelinta alle iyo inuu ilaahay dartii wax u caafiyo waxaad tiraahdaa waan ku saamaxay niyaddana isku safeeya oo baal cusub furta oo gidaarkan idiga hor qaadno oo idinkoo gacantaysa haystaa siraadaan haddii aad rabin inaad saamaxdana amarka alla iskale qof walba bartiisu ku noqonayaa waan saamaxayaa laakiinse arrin keliya mooye laakiinse yaanay arrimaha qaar ku fududaan insha allah anigana aanay iila iman ما سامح هذا هو المسامح كريم هو المسامح كريم asxaabtada quruxda badan naadka u jecelahay meel kasta aad kala joogtaan dunida daafaheeda waqti kasta iyo xilli kastaba waa walaashan hirsaaqo idin leh maasha allah inta aynu ku kulmi doono kilibkan kilib lamida haddii allah awooda laydmo waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh peace and love